telefoonada maanta oo casriga ah waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan muuqaalo aad u qurux badan iyo sawiro aad u qurxoon. Videogan waxaan kugula wadaagayaa farsamooyin aad adeegsanayso marka aad rabto inaad muuqaal cinematic ah aad ku duubto telefoonkaaga. Haddii aad raacdo 6 farsamo oo aan kugula wadaagayo videogan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad telefoonkaaga aad ku samayso video cinematic oo aad u qurux badan iyo waliba sawiro aad u qurux badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إدي سلامي دمان أصحابت ملكستو أجوكتان كسو لوادا channelka magacaygu Cabdiraxmaan. Asxaabta mudooyinkan aan hawada ku kala maqneen ee dib noogu soo biiray waxaan leeyahay kusoo dhawaada channelka waa channelkiina waa channelka aad wax badan uga faa'iideysan lahaydeen dhinaca editingka iyo maaragtay qalabka iyo sida wax loo duubo iyo qalabka wax lagu duubo ee iPhone-ka ama iskale telefoonka smartphone-ka. Waxaan rajaynayaa dabcan dadka aan ugu soo biirin oo haddaba daawanayana inay noogu soo ayagoo subscribe saarayo na wadaagayo asxaabta u baahan video ama muuqaalo noocan oo kale ah, casharo noocan oo kale ah. maanta jawiga aad iyo aad buu qorax u yahay oo kiyaalahan wax kale uma wato ee waa qorax oo kaliya sida darteed asaga celinaya, laakiin sideedaba ma jecli markaan adiga kula hadlaayo inaan xirto oo kiyaala madow ah. sida darteed maantana waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan idin wadaago muuqaalkan oo aad iyo aad u qiimaha badan. farsamada ugu horeyso marka hore inta aadan muuqaalka sameeynin inaad qorto oo aad diyaariso waxa aad rabto inaad duubto. muuqaalka markaad rabto inaad duubto waxa u baahan tahay inaad marka hore aad si qorsheyso waxa ayaabaha aad duubaysid, meelaha aad qorshaha aad ka dhiganaysid, meesha aad rabto inaad muuqaalada aad ka duubto iyo sida aad rabto inaad u duubto. haddii aadan diyaarinin muuqaalka aad duubaysid iyo meelaha aad muuqaalada ku qabanaysid waxaa la dhacaysa in telefoonkaaga memorigiisa uu buuxsamo oo muuqaalo badan oo markii dambena result fiican uusan ku siinaynin aad duubto. sidaa darteed waxaa laga maarmaan ah inaad qorato aad qorsheyso muuqaal kasto aad duubaysid. waliba muuqaalada marka aad sameynaysid waxa u baahan tahay qaybo kala go'an inaad u duubto. ma u baahnid in muuqaalka hal mar aad wada qabto oo kaamira hal mar aad record taabato oo hal mar ma aragtay wixii dhan aad duubto. muuqaal kastaba qaybta uga baahan tahay ayaad record taabanaysaa. marka aad ka dhamaysatan stop ayaad leedahay si aad u save gareyso memoriga space-ka ka harayo. farsamada labaad oo adeegsanaysid waxa waaye telefoonka aad haysato inaad u hesho qalab oo maaragtay saacidayo inuu videoga oo noqdo video oo stable ah oo degan oo maaragtay si qurxoon aad u duubi karto. qalabkan maanta aan adeegsanayno waxa waaye tripod iyo maaragtay camera cage. maaragtay markaan rabo inaan telefoonka aan gacanta ku qabto telefoonka kaliya markaan sidaan u qabanayo videoga stable ma ii noqonayo. marka waxaan helay qalabkan oo maaragtay kamirada sidaan aad u qabanaysid marka aad rabto inaad wax ku duubto si oo maaragtay kamera amal oo ii noqdo anigoo adeegsanayo filterkan wuxuu iga saacidayaa maadaama qorax badan ay jirto. filterka marka waxa waaye freewheel ayaa la dhahaa oo maaragtay 2 ilaa 5 oo stop ayuu leeyahay. marka meeshaan magnet waaye waa lagu talagalay qofkan isaga wato freewheel sharp ayaa la dhahaa. sida darteed marka meeshaan oo aad u jeedo calaamadaas cad iyo freewheel sharp calaamadaas cad ayaad isku aadinaysaa. marka isku aadiso wuu ku dhagaya marka ma u baahnid inaad ku xirxirto inaad ku samayso qalabkaas aad adeegsanaysaa. marka telefoonka aan haysto waa 15 Pro Max ah. waxaana doonayaa inaan ku duubo 60 frames per second oo Apple log ah. marka telefoonka internalka storage-kiisa ima ogolaanayo inaan maaragtay u adeegsado 60 frames per second inaan ku duubto marka setting adeegsanayo. marka sidaa darteeda inaan adeegsado external oo maaragtay storage oo SSD ah 500 oo gigabyte ah waaye iyo USB-C aan ku xiriirinayo USB-C-ga. qalabkan oo iswato oo dhan waxaa la dhahaa freewheel sharp. sida darteed marka aniga waxaan rabaa wax oo maaragtay iska minimal ah. markastaba camera weyn ma qaada karo si aan maaragtay oo aan u baahdo marka waxa waaye wax aan u adeegsan karo oo mar walbaba aan gacanteeda ku qabsan karo hadaan u baahnayna aan maaragtay iska bixin karo aan iska furi karo. midkan gacanta hand grip kaliya ma ahano marka telefoonku qabanaysid hand grip oo kaliya ma ahano. meeshan wuxuu ka wataa
arka Swiss inaad maaragtay marka haysato tripod noocan oo kale uma baahnid wax kale oo dheeri ah inaad ku xirto wax kale oo dheeri ah inaad ku xirto uma baahnid kaliya marka meeshaas saas u gelinaysaa waana ku xiraysaa marka ku xirto qalabkii oo dhan marka waxa u adeegsan kartaa xataa hadhow marka video marka inaad duubto sidaas oo kale ayaad u adeegsanaysaa qalab walba oo aad hesho oo telefoonka waxa marka aad video qaadayso ka saacidayo sidaas aad u adeegsan kartaa marka farsamada saddexaad camera settings waana qaybta ugu muhiimsan oo processka video duubista oo dhan ugu muhiimsan iPhone 15 Pro iyo Pro Max waxay awood u leeyihiin inay duubaan 60 frames per second iyo waliba inaad log ku duubto logna macnihiisu waxa waaye videogaaga inuu flat ahaado oo wax color aan lahayn hadhowna nooca aad rabto aad u color garayso si aad u soo active garayso Apple log oo maaragtay si log ah ina u duubto oo 60 frames per second aad ugu duubto inaad tagto waaye camera settings ayaan tagaynaa kadibna waxaan tagaynaa formats ayaan tagaynaa formats marka tagno waxaan sii aadaynaa marka meesha ay ku qoran tahay Apple ProRes okay aan leenahay video ProRes encoding Apple ProRes waxaan ka dhigaynaa okay active ayaan ka dhigaynaa marka hore disactive haduu ku yahay active ayaa ka dhigaysaa meesha ka hooseysana waxaa ku qoran ProRes encoding ayaa ku qoran meeshaas marka tagto HDR iyo SDR iyo log ayaan ka sameeynaynaa oo Java ii dooran yahay waxaana muhiim ah marka inaad soo active garayso inaad maaragtay white balance-ga aad ka dhigto log aad ka dhigto si aad white balance-ga adiga u xukumi kartid marka sidaa darteeda waxaad tagaysaa record video tagaynaa kadibna meeshaas oo maaragtay ay ku qoran tahay log white balance-ga active ayaa ka dhigaysaa haddoosan active ku ahayn auto frames per second off ayaad ka dhigaysaa labadaasi intaas waa muhiim soo marka appka aad soo furto kamerada sidaan ayuu noqonayaa meeshaan hoose oo maaragtay video ku qoran tahay aan taabanaynaa meeshaan hoose marka waxa ku qoran ProRes log oo maaragtay oo xiran tahay active ayaad ka dhigaysaa si oo manual u active gareynaysaa ogow marka aad 4K 60 frames per second aad ku duubaysid waxa u baahan tahay inaad maaragtay midkan external storage-ka aad ku xiriiriso oo maaragtay si oo maaragtay u duubo haddaan ka bixiyo 4K 60 frames per second wuxuu soo noqonayaa 30 frames per second USB-C-gan hoos meeshan kuma qorno marka waxa ogaanaysaa inuu ku akhriyay si sax inuu akhriyay markaad ku xiriiriso USB-C cable-ka markaad ku xiriiriso in maaragtay oo hoos ku soo qoraayo USB-C kadibna meeshan aan ka dooran karo 60 frames per second oo log ah sida darteeda marka waxa waaye intaas ayaa u muhiimsan waxa jiro maaragtay video dhan 10 dhan aan uga hadlaayo iPhone 15 Pro Max oo camera settings ah waxaan ku soo link gareynayaa halkan ama halkan dhinacuun ka daawo hoosna description kan waan ku soo link gareynayaa 10 kasta waa soo daawan kartaa adigoo maaragtay full complete oo maaragtay camera settings adeegsan karto farsamada afraad waa camera movement marka aad rabto telefoonkaaga iPhone-ka ah ama telefoonka Samsung aad haysato inaad ku duubto video aad u qurux badan oo dadka soo jiidan karo waxa qayb muhiim ka ah ugu muhiimsan inta processka aad duubaysid oo duubista aad wado kamerada sida aad u dhaqaajinaysid meesha aad kamerada ku qabanaysid iyo sida aad kamerada u adeegsanaysid kamerada markaad rabto inaad meel ku aadiso waxa muhiim ah inaad maskaxda ku hayso inaad adeegsato saddexdaas shayna waxa waaye qayb maaragtay la dhaho white shot oo maaragtay marka aan hadda arabo inaan ka hadlo oo sidaan oo kale oo maaragtay meel oo dadko dhan ama wax oo dhan arki karaan oo qayb maaragtay medium shot ah oo rabto qayb kaliya oo focuska dadka inaad u saarto ay rabaan inaad rabto inaad ka hadasho oo kale markaad rabo kamerada oo kale markaas sidaan oo kale aan ku tusayo kale waa medium shot marka aan rabto iyo waliba qaybta saddexaad oo ah close shotna waxa waaye marka aan rabo inaan si toos aan kugu saaro waxa aan rabo inaan focuska ku saaro oo ah kamerada aan ku wareejinayo marka sidaas darteeda saddexdaas shay ayaa aad muhiim u ah inaad horta maskaxda ku hayso waxa kale oo soo raaco marka aad rabto qof lugeynayo ama baabuur socdo inaad duubto marka rabto direction-ka مثلا قفك مركو أو سي أو ماركت أو مديك أو صعدو أو بدح دنا عدا أو صعدو هدنا كاميرا ده أو دنا مديك أو قبضته بدح أو قبضته هدنا دنا عكله أو ماركت شات ككله مديك أو قبضته بدح أو قبضته الله بكا أو إسكهور إيمانا أي نقنايان سيدا درت هذا مركو وحين نقناي مركا
qofka maaragtay confuse oo ka qaadaya oo maaragtay story aad rabto inaad ka hadasho oo aad rabto dadka inaad la wadaagto focuska aad u saarto ma ula socon karo sida uu asaga jeclaan lahaa marka xiisaha waxa u yeelay waxa waaye hal direction inaad u samayso hal direction u duubto waay farsamada shanaad waxa waaye music iyo maaragtay sound effect inaad u hesho videogaaga waxa maaragtay music ku haboon inaad u hesho sababtoo ah waxay u yeelaysaa maaragtay videogaaga waa adigoo maaragtay maraqa oo aad cusbo iyo xawaaji iyo aad ku dartay oo kala waaye videoga ayay maaragtay xiisaha u sii kordhinaysaa haddii marka oo maaragtay hadda masalan meeshan oo banaanka ah oo maaragtay biyaha iyo maaragtay iyo geedaha ayaan joogaa oo shimbiraha iyo codadka biyaha iyo doon meeshan maraysa iyo kulli marka waxaasoo dhan inaad maaragtay oo videogaaga oo qabto ayaa muhiim ah farsamada lixaad oo ugu dambaysa waa inaad waqti siiso markaad videoga edit garaynayso aad muuqaalada waqti siiso aad kala daawato aad kala shaandhayso aad isku soo xirxirto marka aad soo balangaraysay aad soo duubtay oo sound effect iyo music aad u qurux badan aad soo heshay waxaa marka aad u baahan tahay inaad u fariisato oo waqti siiso aad edit garayso maaragtay ku barowayso muuqaalada aad samayso aad saarto wixii loo baahneen emailaha oo maaragtay qaladka kaaga galay aad ka jarjarto muuqaalka maaragtay aad ka dhigto muuqaal kooban oo historiga dhan xambaarsan oo min bilow ilaa dhammaad lala socon karo editingkana waa waqtiga ugu badan ee maaragtay processka videoga samaynta oo dhan duubista iyo editingka marka la isku daro video samayn waaye samayntaasoo dhan marka loo boqolkiiba 30 waxay noqonaysaa oo kaliya duubis ay noqonaysaa laakiinse boqolkiiba 70 waa inaad cod saarto cod u hesho ku haboon jarjaritaanka editingka oo dhan aad ku soo hagaajiso sababtoo ah meeshaasi waa meesha kaliya oo maaragtay lagu kala baxayo marka aad social media soo gelinaysid muuqaaladaada sababtoo ah muuqaal si fiican loo edit gareeyay waa la dareemayaa oo cod qurux badan saaran muuqaal qurux badan ah maaragtay filter iyo muuqaal oo video shaking aan lahayn oo stable ah sound effect saaran waxaasoo dhan markii oo aad social media soo geliso meesha lagu kala baxayo meeshaas waay waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysatay muuqaalkan inta aan muuqaal kale aan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh